بسم الله الرحمن الرحيم مجاي واسمسم عبد محمد عمر كان سعدت حزبيجا UPD waxaan aad ugu faraxsanahay in aan muddo 3 maalin train soconaay isoo qaabisay xagaag academic inaan ka qayb galo waliba aan ka faa'iido wax badan oo leadership-ka maadaama hamigaygu uu yahay inaan wax hogaamiyo waxaan rajeynayaa training-kan wax badan aan ka faa'iiday inaan dhalinyarada ugu faa'iideeyo as leader ahaana ku dabaqo sidoo kale waa ii farxad in trainino badan aan soo qaatay inuu ka duwan yahay as a practical activity-ga dadka ka soo qayb galay iyo lecture-ka bixinayay thank you Ustaad Suldaan Ustaad Mas'uud waxa ka faa'iiday as a leader marka tahay saa ugu macaamil lahayd groupka ama dadka hogaaminaysid group arrangement teamwork sidoo kale waxa ka faa'iiday hogaamiyaha marka adiga lagu hogaaminayo iyo marka adiga wax hogaaminaysa farqiga u dhaxeeyo iyo marka adiga lagu hogaaminayo inaad trust aad dhibtid marka adiga wax hogaaminaysidna inaad responsibility iska saartid waxaan aad ugu faraxsanahay marna ka xumahay horta waxa ku faraxsanahay in gabadha kaliya ee barnaamijka ka qayb gashay sidoo kale waxaan aad ugu xumahay gabdhaheena inay guriyaha joogaan traininada iyo leadership-ka ee rag ee la tartamin mar walbana baarlamaanka waxa la horgeeyaa qoondada dumarka markii macnaha in mar walba la doodo oo la dhaho gabdhaha soo baxaan waxa ka wanaagsan gabdhaha in ayaga soo xil saaraan ay imaadaan meelaha rag joogaan ee la tartamaan qoondadooda iyo xuquuqdoodana inta loo raadin ka hor in ayaga raadsadaan rajeynaa dhamaan dadka daawanayo waxa dhihi lahaa ha laga faa'iideysto akademiyadan waxay ku imaato waqtigeeda dhalinyaro baa soo aastay waliba ayagoo fiirinayaan xaaladda marxaladda wadanka uu ku jiro waxa naga qaldan waxay tahay hogaaminta naga la saxaa waxa jiro dad oo wax badan ku jiro laakiin se la baqaayo inay soo bandhigaan ee bulshada hortooda imaadaan meeshan waa la iska dhisaa marka waxaan rajeynayaa inaan la baqin waxaan nahay dhalinyarada dadkii bedeli lahaa wadankaani haddii aan baqno wax badan ma bedelayno akademiyadana fursad ay noo siisay inay na caawiso fadlan aan ka faa'iideysano